الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي لبي سغاشناد يا كتاب كيني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله رأس مال العبد هل كان حكمة وحال وشيغ يا عوان لوغا دغاي أدونك رأس مال كيسو محويه يعني رأس مالك وحيابها ugu wanaagsan oo ruuxa haysto oo dhabta ah waa الرغبة في الله jacayl ilaahay subxaanahu watacaala uu jeclaado iyo inuu alla xaggiisa qofku uu u jeedo ashawq ilaa liqaahi inuu la kulmo rabbi inuu jeclaado waa ra-sumaalka addoonka waana xayaatadiisa iyo noloshiisu midda ay ku taagan tahay ee wanaagsan rawdatulmuxibiin kitaabkaasuu ibnuqayim ku sheegay waa asalka iyo salka sacaadadiisa iyo reerayntiisu ay ku taagan tahay waa falaaxiisa iyo liibaantiisa iyo nicmadiisu midda ay ku jirto waa indhihiisu waxa ay ku qabowsadaan raqbadaa rabbi la jeclaado xaggiisana showq iyo liqaagiisa iyo la kulankiisana waa midii laynoo khalqay waa midii layna amray waa midii rususha loo diray waa midii kutubta loo soo dejiyey ma jiraa la yidhaahdaa qalbigu salaax ma helayo wanaag nicmana ma helaayo ilaa inay raqbadu iyo jacaylku alla xaggiisa noqdo ma ogi uu noqdo allah subxaanahu watacaala midka aad jeceshahay midka aad dalbayso midka aad rajaynayso fa idaa faragta fansab wa ilaa rabbika farqab ayib macluumo kale ayuu ibnulqayim wuxuu isagana ciwaan looga dhigay tafkhiimu daat yacni qofka oo isweyneeya isweynayntaasi maxay diinteenu ka tiri inuu ruuxu isla weynaado walyaxdar ha ka digtoona kula alxadar min طugyaani ana walii wa cindii sidaasuu ibnuqayim yidhi fahadihi alalfaadu halaatha ubtuliya biha ibliisu wa fircawn wa qaaruun ruuxu ha iska ilaaliyo ha ka digtoonaado duqyaanka kelimada ana inuu yidhi ana aniga sidaas oo kale ama walii anigu waxaan ii ahaaday anigaa iska leh ama cindi agtaydaa laga helaa agtayduu yaallaa sidaas oo kale arrimaha waxyaabaha qaar waad odhan kartaa laakiin midda layska nahyinaya ama layska reebayo waan arki doonaa insha allah alfaadan ama erayadan oo kelimada aniga ana ah iyo kelima lii iyo cindii waa erayada lagu ibtileeyey oo lagu dhumiyey oo lagu mashaqeeyey ibliis iyo fircoon iyo qaaruun siday ahaayeen zaadulmacaad buu sheekhu ku sheegay macluumadan fa ana khayru minhu ibliis baa yidhi ana khayru minhu yani aadam markii laga hadlayey sujuuddii malaa'igtii hawshii dheerada qisadii wuxuu yidhi aniga ayaa ka khayr badan khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin yani aniga sidee baan yani waxaa weeye marka kelimadaa fa ana anigaa ka fiican anaa qofkan ka inuu qofku sidaa yidhaahda lama ogola macluumadii labaad wali waa kelimadii ahayd wanaadaa fircawnu fii qowmihi qaala yaa qowmi alaysa lii mulku misra wahadihi alanhaaru tajrii min taxtii afalaa tubsiruun wuxuu fircawn markuu qoomkiisa u yeedhay wuxuu yihi alaysa lii mulku misr soo misr oo dhan dhulkan anigu boqortooyadan soo aniga iska meli wali aniga soo iska meli iyaduna waa midda uu ku dhumay weeyaan qaaruun inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii buuri aniga xoolahan aad u jeedaan iyo waxaan tirada badan eed aragtaan fi suurati qasas looga waramayey ilaahay wuxuu igu siiyey buuri cilmin calaa cilmin cindii aqoon baan leeyahay anigaa ku habboon anigaa aqoon baa legu marka inuu qofku erayada noocaasa lama ogola laakiin mar ay saddexdan erayba fiican yihiin baa jiray axsan maa wadicat bal wax ugu fiican oo loo dejiyey ana markuu ruuxu leeyahay addoonku markuu leeyahay ana alcabdu lmudnib anigu waxaan ahay addoonkii dambaabay almukhti kii gefka badnaa baan ahay almustakfir qofkii ilaahay dembi dhaaf weydiisanay almuctarif qofkii ictiraafayey oo maaragtay inuu dambaabay ogaaba yani erayada noocaasa markuu ruuxu leeyahay ana alcabdu lmudnib ilaahayo waxaan ahay addoonkii dambaabay waa la odhan karaa qaabkaasaa loo adeegsadaa walidii aan diidaynay wuxuu odhan karaa qofku lii addanbu waliya aljurmu waliya almaskana
ليه الفقر والذل يعني marka tadaruca iyo ilaahay aad isku miskiiminayso yaa waxaad oran kartaa dembi oo dhan anaa iska leh, jurmi iyo xumaan anigaa leh, faqiirnimo iyo baahi aniga agtayday taalla, dullinimo agtayday taalla yaa rabbi. marka rabbi wuu isku bixinayaa. cindii oo kale kelimada marka uu adeegsanayo inuu yidhaahdo ilaahayow ii dhaaf u dhaaf aniga dhabtayda iyo ciyaartayda iyo gefkayga iyo intoo dhanba kullu daalika cindii. intaas oo dhanba anigaa laga helaa. anigaa laga helaa anigoo gefkaygu anigoo kibir iyo ku jira iyo maaragtay anigoo ku jira gef uu iga yahay anigoo ukas marka qaarkood khalad u sameynay kullu daalika cindii. marka sidaas cindii waa loo adeegsan karaa, lii qaabkaasoo kale waa loo adeegsan karaa, ana oo kale qaabka waa loo adeegsan karaa, laakiin qaabkan hore oo iskibrinta oo isla weynaanta ah saddexdaa erayba waa la reebay. ilaahay subxaana wa tacaala mithqaalu daratin min kibr qofuu ku jiraa la yidhi janno arki maayo, ilaahay naga badbaaya. kibirka waxaa la yidhaahdaa bataru lxaqi wa gamdu nnaas. marka la tacriifiya labada arrimood buu leh. dadka qaar waxay moodaan ruux labisan oo dhar qurqurux badan qabi iyo hadday arkaan iyo si soo habeeyo isu hagaaji hebel waa kibirsan yahay ama heblaayo waa kibrinaysaa saas oo kale. marka kuwaasi kibir ma aha. kibirka laba arrimood buu weeye, laba lugood buu leeyahayo waa batarul xaqi xaqa oo layska weyneeyo iyo gamduna dadka oo la xaqiro. dadka oo la xaqiro oo dadku kula yaryaraadaan oo adigu askala fiican tahay iyo xaqa oo layska weyneeyo, labada arrimood weeye kibirka. ilaahay subxaana wa tacaala inaga badbaadiyo. jazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.